Okay, waxaa kusoo dhawataan Excelka waxyaalaha lagu samayn karo. Halkan waxaan arkaynaa maanta bal Excel ma lagu samayn karaa wax la yiraahdo projection haddii maaragtay revenue increase iyo revenue decrease anoo isticmaalay percent increase iyo percent decrease ma lagu samayn karaa. Ujeedadeena maanta casharkeena waa intaas inaan barano. Waa lagu samayn karaa formulooyin u baahan tahay. Hadda horta marka hore aan profit ka aragno haddaan dhahna revenue-gan minus operating expense-gan intaanaan generate garayna marka profit saafi intaana noo lacagtaana samayna laakiin intaana waa nooga baxday oo waxaa la dhahaa operating expense si maaragtay aan u shaqeyna shaqadii iyo alaabtii iyo wixii aan soo gadayna materialkii iyo maaragtay wixii oo dhan nooga baxday intaana laakiin saafi aan soo gashay. Marka waxaan rabnaa lacagtaan baxaysana inaan 5% aan hoos u dhigno lacagtaana soo galaysana inaan 8% aan kor u qaadno. Ma samayn karnaa? Yes, and that's maaragtay casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay inaan idin tuso. Waxaa leedahay equals lacagtaan waxaan rabaa inaan ku daro. Maxaa ku daraysaa? Waxaan rabaa lacagtaan inaan ku daro 8% more. Ataa formulada marka. Mujdaa lacagtaan waxaan rabaa 8% more inaan ku daro by 2020 8% increase inay noqoto this one interde marka. Marka wuxuu yiri 8% increase hadaa kordhid 2020 waxaa sameynaysaa 49,485 intaan marka intaana isku bedeshay by 2020 intaana sameynay 8% increase marka labadan u dhaxeeyo. Okay, sanad walba rabtaa inay dhacdo marka double click gare markii la gaaro by 2024 waa kana marka revenue-geygi wuxuu noqday 67 meeshu ka 45. Okay, what about halkan ilaa halkan waa aragnay percent increase inaan ku samaynay. What about halkan percent decrease kana saa u samaynaa. Okay, equals waa slightly different the same formula. Marka waxaa leedahay this one meesha hadday ta plus isticmaala hadda hoos u soconnaa waxaan isticmaalaynaa minus waxaa leedahay this one times meeqa waay waa 5%. Marka formula hadda meeshaan plus meesha ka ahayd tan minus aa leedahay macnaheedu waxaa waaye lacagtan waxaan rabaa inay hoos u dhacdo by 2020 5% interdem. Marka haddii lacagtan hoos u dhacdo by 5% meesha 20 aan ka bixinay 19,000 aan bixinayna. Marka profit kana marka soo ekanaya ku apply garay halkan kan saas soo jeed profit kana kor u kacay 30 meesha aan last year aan ka sameynay 20 at the end of 2020 this sanadka markuu noo dhamaado hadda in bishii lixaad lagu jiro markuu noo dhamaado lacagtaana saafi noo noqonay saafi intaana noo soo baxay inta in ka yarna waa nooga baxday. Marka tan ku wada apply garay formula ku jirta hoos wada socod fiir marka hoos u socota 20 naga bixisay 19 naga bixisay sanadku soo xigay 18 naga baxay macnaheedu 5% downkii waa halka saas u effect garay. Marka inta marka ayadana maxaa kor noo kacay marka arta inta kor u socota 25 ka bilaad 30 mujida 2024 meesha la gaaran 51,553. Marka halkan very simple waxaan aragnay anagoo isticmaalayna Excel iyo formula yar oo maaragtay aan dhisanay in aan sameyno projection 8% increase hadaan sameyno we already know. Marka halkan we already know waxa maaragtay expense-gan u yahay. Halkan waa aragnaa profit-keena sidoo noqon. Waxaa laga yaabaa qof inuu isweydiiyo oo dhaho okay tan iyo tan 8% increase inuu dhacay ma ogaan karaa 8% increase inuu dhacay halkan iyo halkan ma ogaan karaa. Bonus idin siinaya another formula u baahan tahay waa bonus this one. Marka waxaa leedahay this one equals waxaa leedahay lacagtan la sameyn doono 2024 minus lacagta la sameyn doono 2023 because sanadkan iyo sanadkan 2023 soo horeysa. Mujda labadan isku xir marka waxaa rabtaa in la isku group garay labadaas ay wada socdaan divided by waxaa leedahay lacagtan marka saasa lagu ogaadaa marka percentage and increase and decrease inuu dhacay what really happened what percentage meeshaan halkan percentage ka dhacay halkan waxaa aragteen how to apply percentage sida loo kordhiyo laakiin inay arrintii inay saas u dhacday in kale see lagu ogaadaa waa kaasa formuladaas lagu ogaadaa.
hadda wuxuu ku sii waa dismal marka hadaa laakiin halkan ka bedelno formatka aan sameyno fiir marka 8% increase aa dhacay decrease sidoo kale ma dhaca isagana sidoo kale equals waxaa leedahay lacagtan mujida minus lacagtan mar walbana yaana hilmaamin inaan isku group garayno ma fahanti divided by lacagtan tanna waa tana marka negative ku siinaya why is it negative ku siinaya negative kan wuxuu ku siinaya decrease ka is always a negative it's going down by 5% mujida this one is going down by 5% that's why a negative because tan iyo tan marka isku fiirisid tii hora badan mujida tan iyo tan marka isku fiirisid tii hora badan mujida tan iyo tan marka macnaheedu you're going down halkan kana you're going up mujida as you go down the years you going up halkaana fiiri as you go down next year lacag badan sameysa mujida marka every business haddii uu yahay Royal Coffee shop iyo haddii uu yahay Walmart goolkooda waxaa waaye inay operating expense-gana ay hoos u dhaco revenue-gana uu kor u bato si hadhowti lacagta saafida usoo harays ay u badato inay waxaan goolkan gaaraanna waxyaalo badan ay sameeyaan ama negotiation ay la sameeyaan provideradooda iyo maaragtay waxaa maaragtay ayaga kambaniyada ay alaabta ka gataan waxyaalaha ka gataan hadda meeshaan oo kale kambaniga uu ka gato caanaha kambaniga uu ka gato sonkorta kambaniga uu ka gato kafeeyada kambaniga uu ka gato maaragtay koobkii wax lagu cabaay waxaas oo dhan lacag waay soo maahan iyo xataa shaqaalaha iyo clinic meesha iyo rentiga meesha iyo waxaas oo dhan waa operating expense ah marka waxaas oo dhan ay negotiation ka galaan marka si ay lacagta hoos ugu dhacdo revenue-gana uu u bato maaragtay hadhowtiina the bottom line u kor u kaco marka waxaan baranay anagoo isticmaalayna excel sida loo sameeyo percent increase iyo percent decrease aan u hubin kartid inay arrintaasi dhacday marka waxaa inoo ballanaa next clip